بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فصل موجبات الغسل قبيسك وحا واجبي 6 لحوه. موجبات الغسل qabayska waxa waajibinayo 6 lixway. ilaajul xashafati fi lfarj, xashafada waa dakarka intiisa hore ayaa la yidhaha. fi lfarji farji la geliyo, macnaha dakar haddii uu farji galo oo qeybtii intiisaa hore xashafada la yidhaahdo ay farji gasho, wax farji lagu magacaabo. wakada fi dubur, duburkina waa un la mide, waa isku mide. qabays baa waajibaya, ama miniha soo baxdo ama yay soo baxeen, isku mid wey. maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ida ltaqa alkhitaanaani faqad wajaba alguslu. hadday labadii gudmo kulmaan qabays baa waajibaya. taa waa midka koobaad ee qabayska waajibinayo. ilaaju lxashafati fi lfarji way. wa khuruuju lminiyi, mini soo baxdana qabays buu waajibiyaa. mini hadday soo baxdo qofka ay ka soo baxdo mini, ama hurda ha kaga timaado ama soo jeed ha kaga timaado, hadday mini soo baxdana qabays baa waajibaya. waa kii labaad wey, sababkii labaad ee qabayska waajibinayo waay khuruuju lminiy, mini soo baxday waay. minida calaamad lagu gartay leedahay, maxaa yeelay 3 shay oo isu eg baa jiro oo calaamaadkay ku kala duwan yihiin, qofku inuu kala barto waay. mini iyo wadi iyo madi. minida 3 calaamaa lagu gartaa. bitadafuqin, tadafuq way boodboodeysaa minidu, dhag 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 bay tiraahdaa. min maa-in daafiqin baa ilaah yidhi, min maa-in daafiq, khuliqa min maa-in daafiqin, biyo boodboodayo ayaa laga abuuray bini aadam. marka boodida ay boodeyso oo markay soo baxayso dhag dhag ay leedahay waa calaamad minida lagu garanayo. calaamada labaad ee lagu garanayo waxa weeye taladud bay leedahay. taladud oo xaaladaa ay soo baxayso qofku uu dareemayaa, uu macaansanaya. calaamada saddexaad ee lagu garto minida waxa weeye hadday minidu qoyan tahay, sida yacni ubax oo kale, geedaha ubaxa kasoo baxayo oo kale camal bay u urtaa suurteeda markay qoyan tahay. markay angegtana yacni ukunta camal bay u ureysaa. ukuntu yani ur saasa male, laakiin markaad ursato, markay ukuntan caadiga wax yar bay leedahay oo suur ah. markay minidu angegto sida ukunta camal bay u surta. 3 calaamo minida lagu gartaa. wadi waxaa la yidhahdaa waa biyo maa-un raqiiqun, biyo jilicsan oo asfar ah, midabkooduna uu yahay kareem camal ya booro booro uu yahay. waxay soo baxaysaa caqiba intishaari dakar. hadduu qofku intuu dakarkiisu intishaaro ama yani shahwo iyo wax qalbigiisa uu dareemo, ama wax mulaacabo iyo ama taabasho iyo wax uu sameeyo, yaa minidaasa soo baxaysa. wax macnaha wax qoyaanoo yaraa soo baxay. waxaas waxaa la yidhaha wadi. wadi baa la yidhaha. marxaba madi baa la yidhaha. madi baa la yidhaha. taas wadidu waxa weeye iyaduna maa-un abyad, waa biyo cad. minidayba aada ugu eg tahay, laakiin calaamaadkii minida lagu garanayo bootintii iyo waxaa iyo macaankii iyo ma laha. waxay soo baxdaa caqiba albowl, inta badan kaadida gadaasheeday timaadaa. qofku intuu kaadiyaa laga yaabaa wax cad oo kasoo baxay inuu arko oo mina u eg.
ama cinda xamli thaqiil wax culus hadduu xumbaarana inay wax ka soo baxaan baa laga yaabaa. taana wadi baa la yidhaha. marka madida iyo wadida labaduba waa nijaaso. meeshay kaa taabtaan waad iska dhaqaysaa, waysada way burinayaan, waad ka istijoonaysaa, hadday dharka ama badanka meel kaa gaartana waad dhaqaysaa, laakiin wax qabaysa ma waajibinaya. minidu waa daahir oo meeshay taabatay lama dhaqayo, waa iska daahir. qabays unbay waajibisaa minidu. marka sidaa way wa khuruuju lminiyi, mini soo baxday ayaa qabayskii waajibinaysa. miniyi shaksi nafsihi awala maratin, saasay kutubta fiqiga markii ay sharxayaan saasay yidhahdaan. qofka minidaas waa inuu yahay qofka minidiisii kasoo baxday. miniyi shaksi nafsihi, minidiisii waa inay tahay awala maratinna waa inay tahay. oo qofka minidiisii haddayna ahayn mini kale ay tahay waxa kasoo baxday ama wax kalaa ku jiro, taasda qabays ma waajibinaysa. oo gabadhii baa masalan markii habeenkii ay wadaadkeedii wada seexdeen ay qabaysatay iyo maalinimadii baa wax kasoo noqdeen, haddana biyaha kasoo waxbaa kasoo noqday aragta. taase dee ayada minideedii keliya maaha, miniyi shaksi nafsihi maaha, tii zawjkeedaa ku jira, sooma isku jira. qabays ma waajibisa taas, iska dhaqaysaa. awala maratin waa inay soo baxdaan. awala mara qofka mini baa ka soo baxday, minidiisii baa soo baxday, meel baa lagu shubay, markaas haddana dib loogu celiyay. dakarkii baa dib loogu shubay, haddana waa lagu shubi karaa haddii intii meel lagu shubo silinga lagu qaado, haddana dib loogu shubo dakar. mar labaad bay soo noqotay, marka way soo baxday, haddana qabays ma waajibinaysa taas. awala maratin maahe minidu taas wey. khuruujulminiy, minida shuruudaasaa loo xidhayo, quyuuda calaamaadkaasay leedahay, saasaa lagu gartaa minida. walxaydu xayl baa waajibiyo, waa kii saddexaad, sababkii saddexaad ee qabayska waajibinaya alxaydu way. dhiiggan xaydka la yidhahdee dumarka ku dhaco, markuu gabadha dhiiggii ku dhaco uu ka go-o dhiiggu, qabays buu waajibinaya. wanifaas, nifaas baa qabayska waajibiya, waa dhiig umulaad baa layidhaha. dhiigga ilmaha markuu soo baxa kadib yimaadaan nifaas la yidhaha. canigu waa inuu soo wada dhamaado, riximka kasoo dhamaado. hadday mataano yihiin xataa waa inay soo wada baxaan. dhiigga ka dambeeya, ilmaha ka dambeeya waxaa la yidhaha nifaas. dhiigga ilmaha hadduu kasoo hormaro ama dhiigga ilmaha la soo baxo, kaa lama yidhaahdo nifaaska. ilmaha ka dambeeya, canigu markuu soo wada baxo meesha, dhiiggaasaa la yidhaha nifaas. xukunkiisa waan gaari doonaa. walwilaadatu, wilaadadii baa waajibiso, dhalmada nafteedii. oo ilmuhuna qabayskii buu waajibinaya, ilmahan dhashay naftiisu qabays buu waajibinayaa. dhiigga ka dambeeyo nifaaska la yidhahdana qabays buu waajibinaya. gabadhu markay umusho marka laba qabays wey, laba qabays baa laba qabays baa ku waajibay. marka wilaadada waa ilmaha wey. ilmaha naftiisa isagoo iska angegan oo qoyaan lahayn oo dhiig lahayn, waxba kama dambeyn, wax kale kama dayn, canugu iska qadalan baa iska soo baxay, fud soo baxay, qabays buu waajibinaya. lianna canugan waxa uu ka abuurmay oo ilaahay ka abuuray miniduna qabays bay waajibin jirtay. marka asalkiisiiba haddii qabays waajibinaya, canuga naftiisa markuu soo baxa qabayskii buu waajibinaya, qabays buu waajibinaya. walmowtu, mowt baa qabayska waajibiya. sababka lixaad ee qabayska waajibinayo waa mowt, waa dhimasho. qofku hadduu dhinto in la dhaqaa waajiba. markaas intii geeridiisa ogaatay ama ehelkiisa ah la joogtay, waajib waxaa ku noqonaysa inay meydkaa dhaqaan. walmowtu, marka lixdaas sababood ama arrimood yaa qabayska waajibis, oo muujibaat lqusli baa la yidhaha. faslun, furuud lqusli, qabayska faradkiisu ithnaani. qabaysku waa waajib haddii lagu yidhaahdo, furuud bu farad buu leeyahay, arkaan buu leeyahay. haddaan waajibkiisa lala imaanina qabaysku ma ansaxayo. hadduu qabayski ansixi waayena wax cibaado ansaxaya ma jiro. yani cibaadada shuruudeedu waa dahaare, qofku waa inuu daahir yahay,
فروض الغسل قبيسك فرض يالكيس اثنان لبوي لبو فرض أمبولي قبيس النية وتعميم البدن بالماء بس لبدا فرضون النية وإن النية إن القبيس واجب قبيسنيس وحدث وين وحدث الأكبر ليلادو مانع عبادتي كامن عني صلاة كودي ذي قرآن كنا أقرأ كودي ذي يعني مساجد كي قلدي سكودي ذي كل إحنا قاتو مركا وإن كريالدي سوائنا إنه تحدث كان أكبر كأول فالديو واللازم وعلى قوم أرمان حي رسولك عليه الصلاة والسلام حليه إنما الأعمال بالنيات عملك وحقوق أنصح ياهم إنما صحة الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قبل أركان وحن يودوا لي مرك النية ولا بد كو مركات قبيسين يسو وجلك هذا ماشي هو الرئيس البيها كو بالله بيسو وإن النية رفع الحدث الأكبر وإن النية الغلب كو قبته رفع الحدث الأكبر حدث كي ويناه ناس كوريالي أو ركن الكوبا فرض كلامات وامحي تعميم البدن بالماء بدن كذا أنت ظاهر كاللغة رياضا وإن البيها بعمل بشرا وشعرا كل بدن كوردن جركا قائد واحد ظاهر بعد الماء واحد ظاهر كاللغة رياضا وإن البيها بعمل مركا وعقوبة هي مركا badankaaga inaad yani tacaahud badan ku samayso oo meelihii ayna biyuhu gaaraynin haddaad inta halkaa tidhaahdo tuubada isku furto biyaha isku furto oo iska shumaan biyuhu meelo badan bayna gaaraynin marka waa inaad biyaha meel alla meeshii daahir waxay daahir xisaaban oo dhan ayna biyaha gaarsiiso masalan markaad istijoonayso dabada inta markuu qofku saxaroonayo banaanka usoo baxayso dabadu daahirkay ka mid tahay marka istijoonayso waa inaad intaa dhaqdo si fiican waa inaad u dhaqdo na korka wax ka marmarisa maaha qofka dumarka waa sidaas oo kale markay qalaa xaajaha gudanayso fariisato yani musqusha ku jirto intaa muuqanayso daahirkay ka mid tahay inay dhaqdo wey dhagaha markii dhegtaada sidaa loo fiiriyo inta la arkayo daahirkay ka mid tahay sanka markii sidaa loo fiiriyo inta la arkayo daahirkuu ka mid yahay calooshaadu hadday xoogaa hilib leedahay ama laablaab leedahay xalusi waxa leedahay laaban tahay waxaasoo dhan daahirkuu ka mid yahay waa in la gaarsiiyo xudunta meeshaa godka ah inay biyuhu galaan timahaaga haddaad timo badan leedahay biyuhu waa inay salka basharka waa inay biyuhu tagaan markaa qabaysanayso timahoo dhan waa inay dhaqmaan biyaha gaaraan basharkaagana jirkaaga waa inay biyuhu gaaraan hadday timahaagu daban yihiin ama isku sii dhadhajan yihiin iskaba dha hadday biyuhu galaynin in la furfuro waa waajib haddii kale wax qabayso ansaxayaa ma jirto gabadha hadday timaha u daban yihiin biyuhuna ayna gelaynin waa inay timaha furfurto raggii hadday timihii u daban yihiin meelaha rag timo daban lagu arkaya malaha hadday timihii daban yihiin timahaas waxaa waajibun ah in la timuhu biyuhu waa inay galaan hoos waa inay galaan haddaan biyuhu geli waayaan wax qabayso ansaxayaa ma jiro wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam taxta kulli shacratin janaaba tin kasta hoosteeda janaaba ku jirta haddaad tintaa hoosteeda biyihii gaarsiin weydo wax janaabo kaa kor noqonaysa ma jirto hadday janaabo kaa kor noqonina cibaadadaadi waxba kama jiraan waxa ka ansaxayaa ma jiro timahan dheer waa cajiib wey imaamu cali bn abi taalib wuxuu leeyahay famin dalika baan caadaytu shacra ra'si markuu rasuulka sidaa aan ka maqlay waxaama la collaytamay buuri madaxayga timihiisa markaa xiyar soo dheer adaanba waan jaraya waa khatar bade biyihii inay marka dhagaha markaad biyaha waxaa la rabaa gacanta dhuubkaad sidaa ugu shubaysaa biyaha markaasaad intaad dhegta sidaa u foorariso aad saa u dhex dhegaysaa
biyuhu way gelayaan dhegtina hoos kuma gelayaan dhegta kale saasa u samaysa waa fooranaysaa sanka biyaha waa gelinaysaa kor baa ujiidaysaa afka laakiin asagu baatin weeye afka waxba afka gudihiisa waajib kuguma biyaha gelisa baatin wey asagu marxaban si fiican inuu qofku u qabaystaa la rabaa waa inuu xadadka iska kor yeelo qofku anniyatu wa tacmiimu lbadani bilmaa waa labadaa farad wey wax iska gaaban wey laakiin labadooda ayaa gudo weyn inaa si fiican aada u kamisho wey faslun shuruud lwuduu'i 10 waysada shuruudeedu waa 10 waysada faradyaalkeeda arkaanteeda waan kasoo baxnay laakiin qofka weysaysanayaa shuruud laga rabaa iyo waysadu ka ansaxdaa qofka shuruuddan le waysadu ka ansaxaysaa alislaamu baa shardi ah qofka weysaysanaya inuu muslim yahay baa shardi ah sidaa awadeed qofku markuu islaamayo qofku lasoo hadlayaa islaamnimadii uu ku qalqaalinayaa iyabuu le wuu ogolaanayaa uu keenaya qofkan islaamka uu diyaar u yahay shahaadada baa loo qabanaya adigu soo wey waa usoo weyseeyey buu ku leeday weysadu kama ansaxayse weysada shardigeedu waa maxay alislaamu intuuna soo islaamin horteed aada usoo weysay ama usoo weysay weyse kama ansaxayso markii shahaadada loo qabto kadib markaa waa in loo markaas weysaysanaya markaas weysadu ka ansaxdaa alislaamu baa shardi ah watamyiizu baa shardi ah watamyiizu baa shardi ah qofka waa inuu wax kala garanayo hadduu sabi yahay oo weliba waxba kala garasho ma gaarin weysadiisa ma ansaxaysa weysadiisa ma yaqaano iska un istaagaya iska tuko inaad tiraahdo iska sii baraysa ma oge hadduu waxba kala garanayni mumayis markuu noqdo canugu markaa wey marka cibaadada la farayo wax la barayo mumayiskuna waxa weye 7 sano markuu canugu gaaro ama markuu wax kala garto oo suu inuu wax kala gartay see loo garanayaa idaa akala waxdahu wa shariba waxdahu wastanjaa waxdahu fahuwa mumayis taasay ku leeyahy hadduu qofku keligii wax cuno orod qadee baa leeyahy cuntada halkaasaa lagu saaray uu cunay isagaa biyihii soo qaato biyihiisina uu iska cabeen musqushuu keligii gelayaayo isagaa soo istijoonayo wixii iska dhaqayo taa waa mumayis canug markaas wixii loo sheegay wuu garan karaa markaas weysadii baa usheegaysaa weysanaya marka tamyiiz baa shardi ah waa inuu mumayis yahay qofku wannaqaau can ilxaydi waannifaas gabadhii markay weysaysanayso waa inay daahir ka tahay xayd iyo nifaas labaduba gabadha ayadoo dhiigga qabto dhiigga xaydka qabta weyse kama ansaxayso weysadu waa xadad asqara xadadkii yaraaway kii akbarkaaba ahay qabtaaba oo dee qabays waajibinaya kan waxba kama ansaxayo nifaaskuna waa la mid dhiig umuleed dhiigga umusha wa camaa shayna qofku waa inuu daahir ka yahay wannaqaau daahir waa inuu ka yahay camaa shay yamnacu mancinaya wusuula almaa biyaha gaaritaankooda ila albashara jirka ay gaaraan qofku markuu weysaysanayo acdaada laga weysaysta xibnaha laga weysaysanayo waa inuuna ku sugnayn wax biyaha ka mancinaya inay jirka gaaraan hadduu korka qofka xoog hadduu wax ku dhegan yahay qofka jirkiisa wax ku dhegan yahay biyihii markii la mariyo biyihii ma gaarayaan hoos weysada ma ansaxaysa ilaa waxaa laga fujiyo biyuhu ay jirka gaaraan wa camaa shayna waa inuu daahir ka yahay yamnacu mancinayo wusuula almaa-i biyaha gaaridooda ila albasharati jirka ay gaaraan ila albasharati jirka ay gaaraan waa wax jirka ku dhegan oo biyaha inay gudbaan celinayo wuxuu doonaa noqo xanjaa meesha ku dhegan waxbaa lagu dhejiyey waxyaalahan oo markii qofka nabar iyo uu ku dhaco maarata meel iyo laga saro sharootada lagu dhejinaya waxbaa ka mid a waxa yacni adag oo biyihii ka gudbi karin weye oo baca meesha ku dhegan waa waxaas in laga fujiyo laakiin waxyaalahan la marsanayo masalan jirka qofku wax marsaday subag baa jirkiisu maray oo waxbaa iska markasa umarisa kaa waxba weysada kama dhibaayo waxaan weysada waxba ka dhibayna cilaanka ay gabdhuhu marsanayaan gacmaha saartaan iyo waxyaalahan gacmahooda ay marmariyaan ugu qurxiyaan waxba kama dhibaayo weysada laanna waxaan waa wax jirkii oo yacni kalar uu lagu sameeyo oo wax la mariyo mooyaane wax jirka kor saaran
oo haddii waxaas la qaado hoostiisu meel angegan ay kasoo baxaysa maaha sooma waxa weysada mancinaya waa wax jirka daboolayo. wa anlaa yakuuna cala alcudwi maa yuqayiru lmaa, wa anlaa yakuuna waa inuusa ahaanin cala alcudwi xibinka korkiisa maa yuqayiru lmaaa biyaha wax doorinayo. qofkii waxaa lagu misaalin jiray masalan qolada geeljiraha geela raaco, dhulkaasay jawaano waysaq badan yihiin oo mar alla markii waxbuu ismari yidhi oo biyihiisaa markuu u mariyeyba biyihii horreyso meeshii uu mariyeyba wayba doorsoomeenba guduud bay noqdeen. taas horta waxa inuu iska dhaqamoogi weysada waxaa la rabaa biyaha markaad jidhka mariso waxaa la mid a qolyahan makaaniga iyo kuwa waxaan ka shaqeeyay wasaqda ku dhex jiro inuu marka hore waxaa iska dhaqan wey. haddii mar korkiisa oo dhan ba waxbaa saaran, wasaq baa saaran, wax biyihii bedelayay, mar alla markii uu biyihiisaa u mariyeyba wixii hore dhan waxay noqdeen wax madow wasaq ah. taa lama xisaabina. biyaha waxaa la rabaa markii biyaha xibinka ay maraan, weysada markii xibinka saa biyuhu u maraan ayagoo cad oo sidoodii oo isbedelin baa rabaa inay xibinka ka qulqulaan. wax biyaha doorinaya waa inuuna dul saarnayn. anlaa yakuuna cala alcudwi maa yuqayiru lmaa, biyaha wax doorinaya. waalcilmu baa shardi ah inuu qofku u cilmi leeya og yahay bifardiyatihi, fardiyati lwuduu, weysadu inay farad tahay oy waajib tahay qofku waa inuu cilmi leeyahy. wa anlaa yactaqida waa inuusa ictiqaadin fardan min furuudihi sunna. weysada faradyaalkeedii waan soo maray 6 bay ahaayeen: niyadii, wejigoo la dhaqo, labada gacmood la dhaqo, masxu raasi, madaxoo la masxo, labada lugoodoo la dhaqo, iyo tartiibkii 6daa bay ahayd. weysada faradyaalkeedii aan soo maraynay mid ka mid a waa inuuna sunno u ictiqaadin. misla wejiga dhaqidiisu waa waajib, waa farad soo ma, wejiga in la dhaqo waa iska sunna. hadduu ictiqaadiyo weysadiisu ma saxi. wa anlaa yactaqida fardan min furuudihi sunna. walmaau biyihi adahuuru daahir waa inay yihiin. biyahan uu ku weysaysanayana biyo dahuur oo wax dahiraya waa inay yihiin. wa dukuulu lwaqti, waqtigii waa inuu galo. walmuwaalaatu, xiriir baa shardiga lidaa'imi alxadath. labadan shardi oo ugu dambeeyaba lidaa'imi alxadath bay u yaalaan. wa dukuulu lwaqti lidaa'imi alxadath, qofka xadadkiisu uu daa'imka yahay inuu markuu weysaysanayo waxaa shardi ah inuu waqtiga u galo. daa'im alxadath waxaa la yidhaha qof cilad baa ku dhacday, waxbaa ka soconaya oo aan istaagayn. kaadidii baa soconayso, ma istaagayso masalan, ama riixdii neeftii baa soconayso, ma istaagayso. daa'im alxadath baa la yidhaha qofkaas. gabadhi waa mustaxaado, dhiig baa iska soconaya. de qofka daa'im xadadka waa macduur. qofka asagu iska fayow markuu rabo intuu iska weysaysto intaas muddo iska joogu markay salaada waqtigeeda la gaaro tukan karaa. laakiin hadduu daa'imulxadad yahay oo macduur yahay oo weysadu yani dahaaradii ma xajin karo, waxaana iska soconayo, waa inuu waqtigu u galo. mar alla markuu waqtigu galo buu isdhaqdhaqayaa, meeshiibuu wax ku xirayaa, weysadii u boobsiinaya, horuu ka tukanaya. wa dukuulu lwaqti lidaa'imi alxadath, qofka hadduu xadadkiisuba soconayo waqtiga inuu u galaa shardi aw, isagoo waqtigii la gaarin ma sii weysan karo. walmuwaalaatu lidaa'imi alxadath, weysadana waa inuu xiriiriyo qofka daa'im xadadka ah. xiriirintuna waa lama qofka markaad weysaysanayso yani xibnaha nacbaa wuduu aada dhaqdo oo saad u weysaysato furuud waaye. laakiin inaad isku xijiso hal meela aada ku weysaysato qofka fayow waajib kuma aha, waa sunno. masalan xaafadoo kale intaad wejiga iyo gacmaha kusoo dhaqato ayaa lugahana masaajidka ku dhaqan kartaa, weysadana saasay sax ku tahay. ama intaa hadda weysaysato qaarka hore ka weysaysato muddo iska joogta kadib yaad haddaba lugta dhaqan kartaa. marka laakiin waa sunno inaad hal meela ku wada weysaysato, xibinka horoon angegin inaad xibinka kale sii dhaqdo, kana qalalin kii ka darkeed inaad sii dhaqdo, waa sunno taas. laakiin qofka daa'im xadadka ee macduurka asagu waajib weeye oo muwaalaadku, maxaa yeele hadduu kala reebo oo u daahiyo cadadkii baa ka imaanaya soo ma. marka asagu inay xiriiriyaa waajiba. labadan shardi oo qofka daa'im alxadadka u yaala. wa dukuulu lwaqti lidaa'im walmuwaalaat lidaa'im alxadad, labadaas. dukuulu lwaqti, waqtigu waa inuu u galo. walmuwaalaatu, xiriir baa shardi ah lidaa'imi alxadadi, qofka xadadkiisa daa'im. 10kaa shardi waa shuruud lwuduu baa la yidhaha. faslu nawaaqid lwuduu, weysada wixii burinayay ayuu fasal yahay. nawaaqidul wuduu'i, weysada waxaa buriya 4 ashyaa, 4 shay wey.
الأول كان كوبان الخارج شيء صباحي بابرينيو ويصير واحد بري الخارج شيء صباحي من أحد السبيلين لبادي وضع متكود وحكا صباح لبدا وضع محي من قبول أو دبر لبدا يعني بني آدم كأوليه هاي وحوي وقبول يدبر قبول وحل محل ككادو محل البول ماشي كادو كإمات قبول بالله فرجنا والله دبرنا ومحل الغائب ماشي سحره كإماتون marka labada meelood waxa la wixii ka soo baxo way sida uu burinay al kharij min ahad sabilayn labadii wada midkood wixii ka soo baxo min qubulin aw duburina labada wada riixun baburinay al kharij ka bedel riixun baburinay aw ghayruhu ama wax kale neef baa soo baxday way sida way buraysaa waxba cayn baa soo baxday way sidii way buraysaa illa alminiya minida mooyaan oo wax alla wixii labada wada ka soo baxo ama neefahaadeen ama wax muuqda ha noqdeen way sidii way burinayaan illa alminiya minida mooyaan oo minidu haday qofka ka timaado soo weysa qabo iska daahir haday minid ka imaato minidaas weysada ma jibinayso ma burinayso laakiin qabays bay waajibaysaa minidu qabays bay waajibaysaa weysada ma buriso الثاني كاللبات ويسدي بروني زوال العقل عقل يزول تقوى بالنوم هردو كتغي أو غيره أما وحكلو كتغي عقل بهدو وحير زولو ويسدي بروني زوال العقل بالنوم أو غيره qofku uu seexday markaad seexato waxba iskaba ogid sooma wuxuu rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wasallam al-aynani wikaa'u sahi labada indhood dabada xirxirkeedu waa dabada waxa ilaalinayo labada indhood faman naama falyatawadda ninkii weyse hurdooda ha weysaysto waxba iskaba ogade هذا صوب حي عمل كم مركز سوجي دوم بس أكتر تمام مركز هذا هردني هذا عقله يكذوله ويسد هو يبرتين سو حديث بعدين أيه هذه وحكة عقله يكذوله نقص وحواه بكون عاي وقلبي يسا حواه زيادة ومرة أما وحواه ويسد هو يبرتين هذا ده عقله يكذوله بس زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد كيف دي هرددي سمويان ممكن مكانيين مقعده مكانه فدقي سوا دبديس من الأرض دولك مكانيين قفكم مركو سيحضر هل حالة بين ويسدو كبرين مركو سدا أفرست عادي تربع بالليلات تربع انتو سا أفرست عادي أفرست لغا سدا سدا ومرسل كان ساكو سيحضر ويسدو كبرين مركز لأن قفك سدا أفرسته كما صوب حنس غالبا لأنه حاول سعادة قف أفرلكم مكانية لو يصير شيء توصل وفرد دينا عمل له حسنون مسيحانين دينا عمل تير سنين أوكا صحابته رضي الله عنهم أنت يمكن صلاة السوريان أيوة فرديو أي سيدا فوس حنجرين أو لازم كوجا من جرين وين تكني إذا قف فرد دينا أساس أفرز ويصير كم أفرز إلا نوم قاعد ممكن إلا نوم يعني قاعد ممكن مقعده من الأرض كاويسي اسمه بريس رسولك صلى الله عليه وسلم أسمه ويسده هردديس ويسمى بريس نبي هردديس ويسمى بريس واختصاص كيسي كمد وحيالله لو خصيصي كمد النبي عليه الصلاة والسلام هذا مركو هردر وأنا بقول ليه يعني تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا أنه هدانا يا أنبياء بنقول ليه إنها أمها كسحنا قلوب تنوي سوجدا وحال وحي لليه هدنا ومغلين وطول مركا هدونا عادي تقصي حتى إسكال بحية وصاصة تكو خورية وسكتو كني لأن قلبي يسوى حال وسوجدا إلي داونه مغلين
hurdada weysada burinaysa lagu jiro hurdo kaamil oo qofka waxba ogeyn haddaad saas yuro kala bixiso oo adoon hurdin oo hadalkii wixii caadi haddaad u maqlayso taas maaha hurdada weysada jebisa weysada kaama jebisa markaas marka nabiga ay khaas ku tahay oo calayhi salaatu wasalaam aad arkaysaa xadiidka qaar ku waraysa nabigu intuu seexday inuu idna iska tukaday aan lagu kadsoomin mid qaarka kusoomalay nabiga ay khaas ku tahay calayhi salaaskiisa ka mid waxyaalo badan oo waxaa jira nabigu uu khaas leeyahay oo ummadda kale aan u banaaneyn athaalidu ka saddexaad ee weysadii burinayay iltiqaau basharatay rajulin wamra'atin kabiirayni ajnabiyeyni min gayri xaa'ilin nin iyo naag jirkoodoo kulmaa weysada buris iltiqaau basharatay rajulin wamra'a nin iyo naag basharkooda waa jirkoodoo kulmo oo istaabto kabiirayni xaalay yihiin waa laba qof oo waaweyn macnaa waa qaangaar wey kabiiraynidu kutubta qaar waxay yidhahdaan balaqaa xadda shahwa xad la ishtihayn karay gaareen way ajnabiyeyni ajnabi bayna kala yihiin oo maxram ma aha dadkii aan nikaax isu qabanaynin ee maxramka aha ma aha waa ajnabi bay kala yihiin min gayri xaa'ilin dhar la-aan bayna istaabteen maxaa la shardiyey horta rajul iyo wamra-a laba jinsi waa shardi horta rag iyo dumar waa shardi bashar inuu yahay waxay iska taabteenna waa shardi basharatay rajulin wamra-a markii lagu leeyahay bashar baa shardiga waa jirkaa markii bashar lagu yidhaha maxaa baxaya timaha haddii aad ka taabato naag ajnabi ah ama iliga haddaad ka taabato ama ciddida haddaad ka taabato ma burayso weysada laanna bashar ma ah bashar baa jirka wey kabiireyni baa shardiga laba waaweyn waa inay yihiin hadday labadoodiba yaryar yihiin ama mid baa yar oo lama ishtihaynayo gabadhi waa gabar yar oo xad la ishtiheeyaba ma gaarin guur loo ishtiheeyo dadki fiicnaa oo ehlu daacada ahaa iyo ehlu khayrka ahaa hadday gabadhan yidhaahdaan gabadhan waa yartahay wax la guur gaartay wax la ishtiheeye maaha weyse ma jebinayso hadday yidhahdaan gabadhan guur way gaartayna yani way geli kartaa markaas markay weysada jebinayso wiilkuna saasoo kale way gabdhihii wan wanaagsanaa ee dhowrsanaa ehlu cibaadada ah wiilka ay ishtiheeyaan kaaway midka weysada jebinay dadka wax walba iska ishtihaynaya ictibaar male ayagu ilmaha hadda dhashay xataa iska ishtihaynaya kuwa ictibaar male dadka wanaagsan oo helu khayrka ah helu waraca kaas ala fiirinaya marka kabiireynidu sidaa waa inay waawen yihiin balaqaa xadda shahwa xad la ishtihayn karay gaareen ajnabiyeyni bay kala yihiin ajnabi waa inay kala yihiin haddana de labada qof waawen yihiin oy ajnabi kala ayna maxram isu yihiin weysada ma jabiyaan maxaarimta waad garanaysaa ama nasab yani xaggeeda maxrama kuugu noqday ama ridaac xagga nuugmada ama musaaharada xagga guurka iyo xididnimada aka oo dumarka yani maxramka ahaa ilaa iyo 8 bay ahaayeen 7 nasabka xaggiisa maxram kuugu ah oo xaraamka ah iyo 7 xagga ridaac 14 iyo 4 xagga musaahara 8 waa kuwa weligood yani xaaraamta ka aqoos 8 marnaba xalaal ku noqon guurkooda wayse kaama jabinaya kuwaas maxramaday maxramka ajnabiyeyni baa shardiga min gayri xaa'ilin haddana dhar la-aan waa inay istaabtaane wax un saatira hadduu ka xigo walow khafiif bahaa noqdo safaleenti khafiif ah yaasaa jirkeeda u saaro jirkeeda o dhan laga arkayo la tilmaami karo cadaantiisiisi iyo kulli arkayo wax un hadduu ka sokeeyo weysadii ma jabayso tabaalkan khafiifka ahee sigisiyaha camal ahe dumarku gashanayaan baa laga aad ku khafiifka jirkoodii baa laga garanayninba inay wax qabtooyin kalaad ku shakinaysaa sooma waxaas ba allah ka dhigay waxba hadduu ka sokeeyo saatira weysada ma jabayso min gayri xaa'ilin ay istaabteen shuruuddaa markii laga helo yaa labadaa qof istaabatay jirkoodii istaabtay weysadii waa ka buraysaa kii la taabtay iyo kii wax taabtay labaduba way ka buraysaa weysadu way ka buraysaa
مرحبا الناس أجنبي إليه ويصير كاجبنيس ومسألة خلافية يعني علماء السنة يقول بدنيهين أو معلم قولوا بدن وحي قبانين ويصير جبنيس ورا أجنبي لقوله تعالى أو لامستم النساء أو لامستم النساء أوينك هذا تابتان لمسكاس تابش على المفسرة وحكى له المفسرة جماع على المفسرة أو لامستم النساء أوينك هذا جماعان مركا لمسكاس لغة عربية تابشو كعنت لغو تابتو أما جرك ما لغو تابتو إيو جماعي لبضب اللغة العربية وكسارونه لكن نصوص بدن با يعني بدن با waxay leeyahay waxay ayidayaan u badan tahay lamsiga in loo isticmaalo aayada looga jeedo ma loo isticmaalayo gacanta wax yada lagu taabanayo ama jirka taabanayo falamasuhu bi aydihim la ilaha illa falamasuhu way taabteen bi aydihim marka masiga lamsiga inuu taabashadaa yahay taasaa xoog badan midda kale waxaa weeye waxna waa cibaado haddii aad taabashadeeda ka weysaysato cibaadadaadaas wax khilaafayo muran kuma jiro laakiin haddaad tidhaahdo taabashadeeda anu ka weysaysanaye markii uu jimaaca lagu fasirayaa cibaadadaada muran baa ku jira waracnimaa loo baahan yahay waracnimo yaa loo baahan yahay na cibaadadaada dhowrto wey masaladu waa masale khilaafiya waay الرابع كان أفراد سبب كأفراد ويسد برينا مس قبول الآدمي من آدم كقبول كيسو الله تابتوي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بدون الأصابع أو بدون الأصابع لو تابتوي قبول ومحل البول شكاله كإيمان مرجع هذا المدبر كهذا قبول بالله منفرج بالله الله تابتوي أما حلقة دبره دبل الله تابتوي دبل وريق كذا وأنت إزدبول يسوقدها والله تابتوي هذا لو تعبنا يا بطول يعني أصابع ببطن الراحة على عشة لو تعبنا أو بدون الأصابع وأنت عد إزدبول يسوق كليا برني هذا كتابة جيل كان كرماها طلبت كتابة تكامل بريسو كأنت ظاهر كذا كردا كتابة تكامل بريسو ملك لا كتابة تكامل بريسو وأنت لو كعمل إزدبول يسوق كليا ما كفرجي كتابة أما دبدي من نفسه قفك أسرع إسكتابتي ويصير ويكبري أو من غيره قفك لو كتابتي ويصير ويكبري حتى من ولد صغير عنه جيس يراه كتاب ويصير ويكبري هاي فرجي وعلى لهم مقعابة أما الدبر لهم مقعابة هذه أبى تابته ويكبري أنت على على عرض إسدبوله يتاكو تابته ويصير ويكبري مركا masiga iyo lamsiga way kala duwan yihiin lamsiga aan soo maraynay oo naag ajnabi oo taabata ahayd iyo masiga oo farji ah taabata way kala duwan yihiin waxay kala duwan yihiin lamsiga maxaa loo shardinayay laba qof oo kala jinsi ah loo shardinayay nin iyo naag way leeyihiin masiga farjiga la taabanayo min jins nafsihi uu qofku iska burinaya xataa laba jins looma shardiyo ko waxaa loo shardinayay lamsiga waa inuu labada jinsi weliba laba qof oo waaweyn oo kabiireyn oo ajnabi kala waa inay yihiin lamsiga looma shardiyo masiga looma shardiyo ajnabi la fiirin maayo inuu qofku weyn yahay la fiirin maayo ma yusamma farjin wey waxaa loo farji lagu caddaa taabto bas waxay ku kala duwan yihiin lamsiga markay labada qof istaabtaan labadoodiba weysadii way ka buraysay laakiin masiga kan farjiga gacanta lagu taabto qofkii wax taabtay bay ka buraysaa kii la taabtay weysada kama burayso qofkaas hadduu gacantiisa la kale u taabto kii wax taabtay bay weysadu ka buraysaa kii la taabtay waxba kama burayaan ilaa hal xaalo keliya ka buraysa ilaa qofka uu ka taabanaya de qof weyn oo ajnabi inay tahay oo taa hadda dhinaci waxay ku buraysaa markaas taabashadii kale buraysaa faslun man intaqada wuduuhu weysadiisu qofkay burto
xaruma calayhi waxaa xaaraanka 4 ashyaa qofkii weysadu ka burto 4 shay baa xaaraamka asalaatu salaad waa ka xaaraan yaana salaada shardigeedu waa dahaaro weysadii baa ka burto qofka weyse ma qabo wadawaaf baa ka xaaraama dawaafkuna waa mansilatu salaad buu kaluu joogaa xaramka marka kacbada markaad tagto taxiyadeeda ama salaamta lagu salaamayo waxaa weeye waa dawaafka waxaa shardi waa dahaara shardi waa dawaaf baa ka xaaraana wamasu lmusxaf kitaab qur-aana taabashadii baa ka xaaraama wa xamlu xubaaridiisana waa ka xaaraam qofka weyse la-aanta kitaab qur-aana ma taaban karo mana qaadi karo kitaabka qur-aanka taabashadiisa waxaa loo shardiyaa inaad weyse qabto liqowlihi tacaala ya laa yamasuhu ila almutaharuun laa yamasuhu qur-aanka ma taabto ila almutaharuuna kuwa daahirkaa mooyaane qof daahir baa qur-aanka taabanaya laa yamasuhu aayaddu maxay tilmaamaysaa musxafkay tilmaamaysaa qur-aanka laa yamasuhu ila almutaharuun maxaa u daliila tanziilu min rabbi alcaalamiin qolya waxay ku fasirayaan oy leeyihiin ama looga jeedaa waxaa laleeyahay lama taabanayo looxu maxfuudka laa yamasuhu ila almutaharuun looxu maxfuudkaa lagu wadaayo dee malaa'igta moogi qofka loo taabanaya ma jiro malaa'igtu daahirka soo ma kaas waxaa diidayo tanziilu min rabbi alcaalamiin tanziilun dejin weeye min rabbi alcaalamiin ilaahay xaggiisa laga soo dejiyo waxaa la soo dejiye ba qur-aanka maha looxu maxfuud maxfuud lama soo dejiyo meeshaasu ku yaalla marka qur-aanka waa kalaamullah waa mucadam uu weyn yahay qof aan weyse qabin inuu taabta lama qabo ilaa daruuro kale in dhibaato kale imaato ama qur-aanka meel ku dhacayo ama wax dhib u imaanayo ama qof cadow gacanta u gelayo meelaan daahirin uu ku dhacayo markaa waa daruuro inaad qaado laakiin adoon daahir ahayn weyse qabin qur-aanka ma taaban karin waxamlu xumbaaridiisana de waa min baab ilowla mar haddii taabasho laguu diiday qaadidiisana kasi min baab ilowla agasi daranta ma qaadi kartid wey wayaxrumu cala aljunub qofkii janaabada qabay waxaa xaaraam ka ah 6 ashyaa 6 shay asalaatu salaad baa ka xaaraama oo qof janaabo qaba salaad ma tukan karti salaada shardigeeda waa dahaaro wadawaafu dawaaf baa ka xaaraama kacbada ma dawaafi karo qofka isagoo junuba ilaa uu dahaaro qaad wamasu lmusxaf kitaab qur-aana taabashadii baa ka xaaraama oo qofkii weyse la-aanta haddii kitaabka yuu taabanin la yihi kii yani janaabada qabayna min baab ilowla wa xamluhu xumbaaridiisuna waa ka xaaraam wallubsu fi lmasjid qofka isagoo janaabo qaba in masaajidka ku dhex nagaado waa xaaraam laanna inuu dhex marayo masaajid saa u dhex gudbo mooyaane inuu dhex fadhiisto ama dhex taagnaado qof janaabo qaba may waa xaaraam wa qiraa'at lqur'aani baa ka xaaraam oo qofka isagoo janaabo qabo qur-aanka ma aqrin karo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay alxaa-idu qofkii xaylka qabtay walaljunub kii janaabada qabay laa yaqra'aani shay-an min alqur'aan wax qur-aanka ka mida ma aqrin karaan qur-aanka aada korka ka taqaano ma aqrin kartid haddaad mar janaabo qabto maxaa yeelay dee wuu diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma aqrin kartid wey ilaa biqasdi dikri waxyaalo yar baa lagu ogoliyay oo dikri aada u qastayso adoo janaabo qabo haddaad wax cunayso bismi illaahi baad dhehaysa hadaad dhamaysan alxamdu lilah hadaad gaadiid fuulayso subxaana aladii sakara lana hada wamaa kunaa lahu muqriniin biqasdi adkaar dikri baad u niyoonaysaa adkaarnibaa taana u akrinaysaa qur-aannimo inaad uma niyoonaysid wy mararkaasaa lagu ogol yahay wayaxrumu bilxayl xaylkii waxaa xaaraan ku ah sababtiisii 10 ashyaa gabadhu markay xayl qabto dhiigga qabto nifaaskuna waa la mid 10 shay baa xaaraamka alsalaatu salaad baa ka xaaraana gabadha dhiigga qabto ma tukan karto salaad ma tukan karto sunno iyo faradbo wadawaafu dawaaf baa ka xaaraana ma kacbada ma dawaafi karta gabadha ayadoo xayl qabto wamasu lmusxaf kitaab qur-aana taabashadiis baa ka xaaraana wa xamlu xubaaridiisana waa ka xaaraan gabadha ayadoo xayl qabto qur-aankii ma taaban karto mana aqrin karto mana qaadi karto saddexda mid isku wadata qur-aankii ma aqrin karto ma taaban karto ma xumbaari karto ma qaadi karto
لأن dhiigga waxa la yiraahdo yani xadadka waxa la yiraahdo xadadka waxa ugu weyn waxa gabadha ku sugan dhiigga xukunkaas xaylka la yiraahdo waa xadadka midka ugu weyn waay wixii ka fududaa weysa la'aantii iyo janaabadii oo janaabadu waa xukun macnawi oo cibaadada reebaya mooyaane minadu waa iska daahir qofka janaabada qabo wax mustaqdara iyo wax lagu dhibsado midna ma laha laakiin minadu waa maanic cibaadada reebayo macnawi ah marka xaylku wuxuu qabaa isagoo maanica buu haddana wuxuu ku darsaday inuu yahay wax yani wasaq oo qurun ah oo qurun ah marka quraanka ma taaban karta gabadha markay dhiig qabto حيث إلهي وحليه سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون قرآن كما تابته إلا هو ظاهر كامويا وظاهر وما تابنك إذا هرأي وشلمي قف ظاهر وما قرآن تابنك وحدث كي ويناي أكبر كقبيس كواجبينه يكي يراي ويسد واجبينه يلرد وقف وينه ظاهر كي مركا أمو قرآن تابنك مركا أمو أغرين كرا gabadha xaylka qabto iyo ninka janaabada qabo ma aqrin karaan buu nabigu leeyahay salaatu wasalaam laa yaqra'ani shay'an min alqur'an wa nafyi oo bimaana nahyi aw hadith Abu Daawud tirmidhi waranay laa yaqra'ani yaysan aqrin wa nafyi oo bimaana nahyi aw shay'an min alqur'an ma aqrin karaan anu oo xalil baayo nabigu leeyahay qof janaabo qabo iyo gabadh dhiig qabto shay'an min alqur'an qur'aan wax kamid ah inay aqriyaan uma xalilayo nabigu uma xalilayo وما طابن كراوه marka qofkii janaabada qabay hadii uu kitaabka quraanka inuu taabto loo diiday sharcigu u diiday ka manciyay laana maanic baa ku sugan xugun yani xadad akbar ah ku sugan oo cibaadadii mancinayo Soomaa gabadhii dhiig qabtay oo aan cibaadays aan salaad tukan karin oo aan soomi karin oo zawjkeedu aan la seexan karin see loo dhigi karaa kitaabka quraanka intaad qaadada akhrin kartaa taa musiibo walaal xaylka markuu ilaahay ka warramay muxuu ilaahay ku tilmaamay waxa ilaahay leeyahay wayas'alunaka 'anil mahiid wayas'alunaka nabi maxamed waxay ku weydiinayaan 'anil mahiid xaylkay ku weydiinayaan dhiiga naftiisa way mahiid waa masdar miimi ah leeyahay makaan maaha zamanna maaha عن المحيض حيلك بيكويديني وديك قلوا حاطر هذا هو حيلك أذن قرن أذن وقرن هو الصقوي فاعتزلوا النساء هوينك كفوا هذا في المحيض وكيديك غبان ولا تقربوهن حتى يظهرن هو دواننا إلى أي ظاهر نقضان وحرام gabadhii dhiig qabto inaad la seexato isticmaasho ama jimacdo waa xaraam way lama ogolo dambi baad ku dhacday kabiiro oo weyn fayda tadahharna fa'tuhunna min haythu amarakum marka hadii marka gabadhii dhiig qabtay dhiig markii Ilaahay uu tilmaamayo ada Ilaahay ku tilmaamay qurba Ilaahay ku tilmaamay waa loo diiday gabadha zawjkeedii inuu la muaamaloodo ilaa ay ka daahir noqoto say marka yani ay macna damiirkeedu u keenaya ama qof uu damiirkiisa u keenaya gabadha noocaas ee adiga naftiisa xataa uu la seexan waayay yaa wuxuu leeyahay inaad kalaamka Ilaahay quraanka akhrisaa quraanka oo kalaamka Ilaahay mu'azzamka inaad akhrisaa wax daliil haba yaraatee oo banaynayo inay gabadha xaylka qabto dhiiga qabto macduurada ay quraanka qaad akhrinayso wax daliil haba yaraatee ma leeyahay nusuusti waa diidaya waxa daliil laga dhigayaa oo gabadhii la leeyahay waad quraanka baad akhrin kartaa hadii loo dhigayaa wuu ka dhumay quraanka ka dhumay gabadhu dhiiga saan ognahay aqalluhu yawman wa layla wa qalibuhu 6 aw 7 wa aktharuhu 15 yawma dhiiga markuu gabadha hayo markuu ugu badan tahay waa 15 bari laba usbuuc sida gabdhuhu u badan yihiin qaalibkoodu istiqraa daliila inay gabdhuhu saddex nooc yihiin maxaa u daliil istiqra
culumadii waqtigii imaam shaafici iyo zamankoodii ay joogeen haddii la raacraacay dumarkii la weydiiyey saddexdaa xaalay dumarka u bateen taasaa la qoray istiqraa la yidhaha. marka dee gabadha dhiigga qaalimkiisuba waa 6 beri waa 7 beri hal usbuuc qur-aanka ku dhumayan beli. waxaase su-aalaho isweydiin leh zamankii nabiga sala allahu calayhi wasalam soo dumar ma joogin dhiigu ku dhacay? haway joogeen. ma la soo raray oo miyaa marna la arki? maxaa loo arki waaye saxaabadii haweenkii saxaabiyaadka oo rasuulku ku leeyay qur-aanka idinka dhumaya iska akhrista qur-aanka, iska akhrista qur-aanka. marka wax ilaahiyo rasuulkiisaba ay joojiyeen haddaad tidhaahdo adigu anaa gabadha qur-aankii baa ka dhumaya akhrisa qur-aanka kaa dhuminaysa, haddaad qur-aanka ka dhuminaysaa gabadha. hadaad ayadoon daahirayn oo laa uqeyn ilaahay kitaabkiisa aad garabka u geliso ood qur-aankan akri tiraad dhibaatad ku ridayba gabadhi waad fidaysa. waa fidno wey taas. waxa aada usii yaabada yani qolyaha waxay isku dayeen inay wax daliila u keenaan gabadhaas maxaan u raadinayn. marka daliil aan wax aan u daliil ahayn ayay meesha keeneen oo waxay yidhahdeen rasuulku sala allahu calayhi wasalam caaisha umuna caaisha yaa waxaa ku dhacay iyadoo xajkii la joogay dhiig baa ku dhacay meeshan yani la yidhahdo sarif la yidhaahdo ayay iyadoo ooyeysu nabigu u yimid. markaasuu rasuulku yihi sala allahu alay wasalam maxaa kugu dhacay? maa yumkiiki an nufis, miyaad xayshay dhiig baa kugu dhacay? qaala waxay tii nacam. faqaala wuxuu yihi nabigu ifcalii maa yafcalu lxaaj gayra an laa taduufii bilbeyt, hada shayun katabahu llahu calaa banaati aadam, ifcalii maa yafcalu lxaaj gayra an laa taduufii bilbeyt. waxan waa wax dabeeco ilaahay uu gabdhaha bani aadamka uu saaray ku xukumay. ninka xaajiga wax alla wuxuu sameynaya samee, laakiin kacbada ha dawaafin. markaas waxay leeyihin gabadha nabiga calayhi salam markuu dhiiggii ku dhacay wuxuu u ogolaaday wax walba inay samayso ilaa kacbada dawaafkeeda mooyaane. marka dawaafkii unbaa lasoo reebay. waxa ay gabadhu samaynaysa waxaa ka mid a qur-aankay akrinaysa. waad u fiirsada arrintaas. acmaasha xajkaa laga hadlay. waxa gabadhan ay la ooyeysa rasuulku u baneynaya xukunkan yani wuxuu ka hadlaya waxaa wey waa acmaasha xajka. acmaasha xajka dawaafka mooyaane acmaasha kale waad samayn kartaa bu nabigu ku yidhi gabadha ku yidhi. laakiin dawaafka basaa gabadha laga reebay wixii kaleo cibaada way samayn kartaa. odi salaada may tukanta dawaafka samayna buu nabigu yidhi. xadiidka kuma sugna inuu nabigu salaada ka celiyey. hadday wixii cibaadao kale loo ogelaya may salaada tukan may salaada ma tukan karta. marka qur-aankii way akrinaysaa. acmaasha shardiga waa qur-aan xajka yani qur-aan la akriya shuruudda acmaasha xajka ka mid maaha loo shardinayo. qofku uu cibaadeysanaya cibaadada uu cibaadeysanaya buu qur-aanka ka mid yahay mooyaane. marka taa daliil ma noqonayso. meesha waxaa laga hadlaya acmaasha xajka dawaafka bes uu nabigu reebay, acmaasha kale markaa u ogolaaday. taa daliil uma noqonaysa qur-aanki. waa mid. xadiid labaad baa jiray umuna caaisha waxay leedahay waa saxiix xadiidkaas. rasuulku calayhi salaatu wasalaam anuu dhiig qabo yaa intuu dhabtayda ku seexdo ayuu qur-aanka dareerinay. marka umuna caaisha oo dhiig qabtuu nabigu dhabteeda ku jiifo markaasuu qur-aankii ku akriyey. mar hadduu dhabteeda ayuu dhiig qabto qur-aankii ku akriyey, gabadha dhiigga qabto qur-aanka way akrin kartaa. oo dama ayada akrisay mise rasuulka akriyay sala allahu calayhi wasalam. taa waa daliil aan soconayn haba yaraan. gabadhan markay dhiiga qabto dee dharkeedii bay qabtaa. xukunkan waa iyadu masaajidkii ma gelayso, gurigaasay joogtaa. laakiin zawjkeedu wuu garab seexanayaa, marada caadi uu iskala huwan karaa, cuntadii way karinaysaa, uu dhiibay wax walbo. xataa gabadha jimaacan ba la ogolay mooyaane wax kale muqadamaadkii iyo wax kale wax walba waa loo ogolyahay. laka maa fawqa alizaar mana ogeyni, xudunta wixii ka koraysa gabadha yaa kaaga banaan xaaskaaga markay dhiig qabto. dee taabashadii iyo agjoogii iyo laseexadkii iyo yani garab seexanaysay iyo nabiga calayhi salatu maalin ba asagoo masaajidka ku jiro ayuu caaisha qolkeeda ku jirta masaajidkeeda qolka uu ku agyaalaya dariishada intuu saa furay nabigu wuxuu yihi sijaayada iisoo dhiib, sijaayada lagu tukanay. markaasi waxay tiri rasuulka ilaah dhiig baan qabaa. ina yadaki laysat xaaida, gacantaadu dhiig ma qabtee xaaida ma iisoo dhiib sijaayada.
marka gabadha sa yani nabigu calayhi salaam wuu tawjiihinaya wuu nabaraya sida ay gabadha marka dhabteedii buu ku akriyay ma daliil bay noqonay ma noqonayso isku soo duubo gabadha dhiigga qabto yaa qur-aan akrinayso fiir hadda saddex dambi baa gabadhii lasugu daray qur-aankii oo akrisay kitaabka qur-aanka ay taabatay masaajidkii oy gashay way ku dhex nagaatay waa saddex dambi un haba yaraatay wax daliil lama jiro oo loo hayo marka arrinta waa arrin weyn ha laga digtoonaado gabdhahana ha loo sheego waana oga naseexaynaynaa dumarku waxaan ayagaa ilaahay kula khidaabay waa wujuub ayaga saarana inay iska ilaaliyaan wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam man uftiya bigayri cilmin fa ismuhu calaa man aftaa qofkii loo fidiyoodo oo loo sheego waxaan cilmi ahayn oo khalad ah dembiga waxaa iskale kii ufidiyoodaa iskale kii ufidiyoodaa iskale marka waa dhibaato weyn waa dhibaato aada u weyn ma akrin karta gabadha dhiiga qabta qur-aanka ma akrin karto waxaa la yidhaahdaa caqligu xataa wuxuu keenaya haddaad caqligaaga fiiriso hadda gabadha dhiigga qabta salaadii waa laga reebay hadday gabadha qur-aankiiba akrinayso waxa loo diiday bal salaada ku noqo salaada qaybaheeda waxa loo diiday ma rukuuca iyo istaaga iyo fariisiga miyaa loo diiday dee qur-aankii salaada qur-aankii bay shamlinaysaa waxa loogu diidayo yaa gabadhu waa cibaado ilaahay la hortaagan tahay haddii marka qur-aankiiba ay akrinayso inay intay istaagto ama foorarsato ama ay fariisato taas miyaa loo diidaya maya way iska fariisan kartaa way istaagi kartaa way foorarsan kartaa waxa loo diidaya salaada loogu diidayo waxa weeye salaada qur-aankii wey qur-aankaa lagu dhex akrinaya salaada marka taas wey wamasul musxafi baa ka xaaraamna waxamluhu baa ka xaaraana walurthu fi lmasjid masaajidka inay ku dhex nagaataa ka xaaraam inay masaajidka dhex fariista gabadha dhig qabto waa xaaraam aniga naftaydaa maqlay masaajid aan ku jiray dumarkii oo markii salaadii la aqimo o salaadii la tukado masaajidku laba qaybood wey qayb kore iyo qayb hoos qaybta kore ay dumarku ku tukanayeen marka salaadii markii la aqimay dee salaadii la wada galay dadkii way wada aamusayaan laakiin dumar baa hadlayo sheekaa yeerayso salaada markii laga baxo waan weydiin maxay dhahen dumarkan marka salaada lagu jiro hadlayo waa gabdhihii macduurka ah oo ayagu aan tukanayn oo meesha maxay ufadhiyaan haddii macduur yihiin maxaa masaajidka soo geliy so cajiib ma aha waa dhibaato walalayaa naftayda arkay goobjoog u ahaa waa gabdhihii macduurka ah wax meeshan ka hadaltahay salaada lagu jiro wallubsu fi lmasjid waa xaaraam wa qiraa'at lqur'aani waa xaaraam kitaabka inay taabato inay qaado masaajidka inay ku dhex nagaato qur-aanka inay akriso wasawmu baa ka xaaraan gabadha xaylka qabto soomka ma soomi karto ilaa uu dhiiggaa ka go-o wadalaaqu dalaaq baa xaaraama gabadha ayuu dhiig qabta in la furo waa xaaraam wey dalaaqu wuu dhacaya laakin waa dalaaq bidciha la yihahdo waa xaaraam iyadoo dhiig qabta in la furo gabadha laanna ciddadaa ku dheeraanayso walmuruuru maritaan baa ka xaaraana fi lmasjidi masaajidka ay dhex marto in khaafad hadday ka cabsanayso talwiiso masaajidka inay wax ku daada isku halayso gabadha dhiigga qabto dii dhiiggeeda xoog u soconayo oo inay dhexmaridda masaajidka dhex marayso inay wax masaajidka ka faniinaan hadday ka yaabayso inay dhex marto masaajidka waa ka xaaraan laakiin hadday aamin tahay oo waxyaalahan ay qabaan dharkan ay qabta iyo waxaan yani xifaadadan ay qabta hadday aamin ku tahay waxba dhiig uun kasoo gudbaynin way iska dhex mari kartaa nagaashada ay ku daahaysaa loo diidaya mooyaane inay albaabka inti kasoo gasho kaa kasii baxda way yeeli kartaa waa banaanteeda walistimtaacu baa xaaraana bimaa bayna sura warukba gabadhii dhiigga qabtay xudunta iyo labada low inta udhaxayso in looga istimtaaco waa xaaraam wey intay gabadhii dhiiggaa ka qabaysanayso laanna nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii weydiiyey wuxuu yihi xaaskeyga maxaa xalaaliya markay yani xaylka qabto muxuu nabiga ku yihi laka maa fawqa alizaar laka maa fawqa alizaar xudunta yani hoos guntiga xudunta way meesha marada hoos laga guntado inta ka koraysaa kuu banaan waxay leedahay umna caaisho rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaan dhiigga qabno wuxuu nagu amri jiray inaan itisaar samayno oon hoosta mare ku xidhano markaasuu fa yubaashiruna uu nala baashiri jiray marka maxaan la ogolayn un xudunta iyo labada low inta udhaxayso intaa in laga taabto lama ogol waa xaaraam way gabar markay dhiigga qabto faslun asbaabu tayammum sala allahu waslam ala sayidina muhammad